بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمانتين أصحابتا ميلكستو أجوكتين أهلا وسهلا كسو دوادا جنالك فايزيس وورلد ميلكستو الدنيا أكو جوكتين وحا إذن لايهي فرحad iyo caafimaad ku jooga insha Allah soo dhawaada asxaabteeda qaaliga ah maanta videogeena waxa ugu hadlaynaa oo videogeena oo quseeya maanta bararka indhaha badmadowga indhaha galo wareegooda sidoo kale godgodka indhaha galo tajaaciidka ama miinta ama laablaabka indhaha galo adigoo yar yani dad badan oo waxa jiraan iyagoo yar yar indhahooda laablaab iyo tajaaciid waxyaalahaas oo ka gala miin camal ay ka gashay maanta marka videogeena taas oo quseeya taas oo uga hadlaynaa waxaan ku sameysanaynaa insha Allah serum basiid aad u fudud oo guriga aan ku sameysanayno oo dabiici ah sidoo kale waxa idin ku tusinayaa kareemaadka indhaha loogu talagalay oo indhaha qaasku indhaha la mariyo iyo massage oo waxa jira indhaha loo sameeyo markii indhaha ay ka baran yihiin ama yani laablaabkaas ay ka galaan sidoo kale madowga xataa u fiican hadii indhaha ay ka madoobaadaan ay ka galaan massage kaas waxa way dhiigo socodsiinaya asana insha Allah waxaan rabaa inaan intaas oo dhan idin la wadaago maanta marka waxaan leeyahay soo dhawaada marka ugu horeysa laakiin inta ugu galin videoga waxaan idin ka codsanayaa videoga inaa hilmaamina oo like aan noo saartiin share gareeyna gabdhaha asxaabtiina u share gareeya sidoo kale hadii aanu cusub tahay marka ugu horeysa aan soo booqatana oo soo dhaweynaya fadlan channelka subscribe dheh gambalelkana furo aad iyo aad aan wada mahadsantiin insha Allah soo dhawaada marka asxaabteeda qaaliga ah marka ugu horeysa waxaan ku bilaabanaynaa sababaha oo keenayo indhaha yani adigoo yar inay ka madoobaadaan barar oo ka galo ama laablaab tajaaciid miin waxyaalahaas ay ka galaan ama god ay ka noqdaan oo god oo ka galo waxa keenayo aan ku bilaabanaynaa insha Allah number 1 waxa way asxaabta hadii yani qofka anemia ay hayso oo dhiig uu ku yar yahay ama xadiidka uu ku yar yahay indhaha waxay sababayaan inay ka madoobaadaan ay ka bararaan sidoo kale hadii aad tahay qof oo habeenkii oo dhafro oo hurdada ay ku yar tahay iidan waxay ku sababaysaa indhaha inay ka madoobaadaan sidoo kale ay ka bararaan waxa kale jiro qofka hadii uu qabo samboorka oo kale xasaasiyada sanka jiib anfiyan dhana anaka wadankan aan joogno qofka markii sanka uu ka jiran yahay oo kale wuxuu sababayaa asagana indhaha hoostooda inay ka madoobaadaan sidoo kale gabdhaha makiyaajka marsado oo ama make-up ka marsado oo habeenkii ku seexdo oo iska dhaqin waxa iidan waxay sabaysaa madow indhaha inuu ka galo sidoo kale waxa keeni kara marka indhaha ay ku cuncunaan ama make-up ka masaxiisid oo kale ina xoog u isticmaashid oo xoog u xoqdid iyo markii maaska wajiga loogu talagalay indhaha marsid oo marka dhaqaysidna xataa yani oo si tartiib ah u dhaqayno xoog u isticmaalaysid iidan indhaha waxay keenayaan indhaha inay ka halaabaan laablaab oo ka galo barar oo ka galo waxyaalahaas dhan ku keeni kara iyo waxyaabo kale oo badan jiraan asxaabta marka waxa fiican indhaha in la ilaaliyo laano indhaha skinkooda khafiif ay wajiga camal ma aha xataa maskaadka qaar oo waxa jiraan oo wajiga loogu talagalay oo indhaha aan la taabsin indhaha aan la marinin marka indhaha skinkooda iyo wajiga skinkooda ma islaha indhaha waxa waaye skinkooda aad ay khafiif u yihiin xasaas waaye in la ilaaliyo waaye marka waxa fiican waxyaalahaas dhan in la iska control oo la ilaaliyo يعني waxaa jiraan waxyaabo badan oo indhaha inay ka madoobaadaan ay ka bararaan ay ku sababayaan adigoo yar oo gaarin indhaha inay ka bararaan ay ka madoobaadaan ay laablaab iyo tajaaciid iyo miin waxyaalahaas ay ka galaan waxyaabo waxaa jiraan ku sababayo marka waxa la rabaa in la iska ilaaliyo waxyaabahaas oo dhan in la iska ilaaliyo haddana waxaan la qaybsanayaa asxaabta serum aad u fudud dabiici ah oo guriga aan ku sameysanayno serumka marka waxaan u baahanaa ka sameysanaynaa marka hore Nescafe hal qaadiro Nescafe Nescafeega marka wuxuu naga saacidayaa bararka indhaha iyo madowgaba kulligeena waa wada naqaan Nescafeega wajiga inuu cadeeyo indhaha hoostooda madowgana waa cadeynaya sidoo kale bararka indhaha ku jiro wuxuu naga saacidayaa dhiig u socodsiinaya bararka indhaha ka dhameynaya Nescafeega marka maada waxa ku jirto oo kafeyn la dhahayo maadadaas marka dhiig ay socodsiisa marka Nescafeega ma sha Allah waxa waaye aad iyo aad ugu fiican yahay bararka iyo madowga indhaha galo waxa kale ku darsanaynaa hal qaado oo aloe vera gel ama dacaar iyo waxa kale ugu dambeeyay ku darsanaynaa vitamin E oil oo 3 dhibcood intaas marka asxaabta inta uu ka kooban yahay serumkeena haddana si fiican isugu qasaynaa si fiican isku dhex gelinaynaa serum waxa way basiid aad iyo aad u fudud indhaha naga saacidayo bararka iyo madowga iyo laablaabka waxyaalahaas galo dhan naga saacidayo hadii si toos loo wadana ma sha Allah yani isbedel aku arki doontiin insha Allah haddana markaas asxaabta markaan ito serumkeena diyaar u noo yahay ma sha Allah tabarakallah marka dhaladana usoo diyaarsanay aan ku shubanaynaa dhaladan marka waxa way dhalo oo iiga dhamaaday hadda ka hor serum
يعني دلوينك ساعة عمل وحواي مركي أو سيرمك أو كعد ماذا وعلى الأخذام على سكتورو كبعدين سيرمك طبيعي قوليها لو سميسنا وكشبه كرتا أما سليدها وجه لو استعمالها وجه لو مساجية لو كشبه كرا مركا أنا كنت بحاول استعمالها إن سيرمك كشبنا هنا مركا إن دلنا كاستعمالنا إن شاء الله. استعمالكن وحواي أصحابتي إن مركو هوري وحال ربا وجهنا اسكا قديد كدبنا وحواي عندها مرني wareegooda marka indhaha marisid waa kula masaajeynay marka masaajeynay sidna xoog ma loo sheegto si tartiib ah loo masaajeynaa waxaan u isticmaalaysaa faryareeda farta ku xigta u isticmaalaysaa fartaas waxa way asxaabtay in farta daciifka ah indhaha loo isticmaalaa marka kareemaadka la marinayo iyo markii la masaajeynayo farta yariista ah farta ku xigta waay fartaas marka u isticmaalaysaa ku marinay si fiican u marinay marka marisid waxa u sugaysaa nus saac ka bacdina waa iska dhaqaysaa marka iska dhaqdidna waxa way kareem waxa jira oo indhaha qaas u ah oo la mariyo kareemkaas indhaha marka marinaysa kula masaajeynay isbuuc markii la wadane ma sha Allah isbedel weyn ku arki doontiin insha Allah marka waxa aham shay ah ina iska ilaalisid waxyaabaha ku sababaya indhaha inay ka bararaan inay god oo ka galo sidoo kale dhafarkiina iska ilaalisid hadii dhig la'aan ay ku haysan waxa way ina xadiid qaadatid oo isku dadaashid dhig la'aanta waxa waxyaabaha keeno indhaha inay ka madoobaadaan dhig la'aanta u sabab ah marka waxa soo dhan in la iska ilaaliyaa fiican maaskadan aadka u fududna hadii la isticmaalo ma sha Allah wax badan ay ka saacideysaa masaajkaasna waxa way aad ku saacidaya ma sha Allah kareemka indhaha loogu talagalay muhiim way kareemkaas in la isticmaalo oo habeenkii marka la seexanayo la isticmaalo maalintana la iska dhaqo marka waxaan leeyahay asxaabta soo tijaabiya seerumkan dabiiciga ah indhaha ma sha Allah hoostooda aad ugu fiican yahay dhiigu socodsiinaya madowga ka qaadaya bararka ka qafiifinaya seerumkan soo tijaabiya sidoo kale kareemka muhiim way indhaha in habeenka lagu seexdo oo la mariyo iyo maxaa la dhahay masaajka asagana ma sha Allah markii indhaha masaajka loo sameeyo dhiiga soconaayo bararka waa ka qafiifaya madowgana waa ka qafiifaya sidoo kale godgodkana waa ka qafiifaya marka waxaan leeyahay ka faa'iideysta insha Allah aad iyo aadan u mahadsantihiin videoga like dhaha share gareeyna asxaabtiin u share gareeya insha Allah waxaan u balanay videoga dambe waxaan idinkaga tagayaa khayr badan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.